وحكمدا بني آدم كوحيابا وقتردا بدن له وأجابه هنجوريا كمدا هنجوري قدتك إن بدن بودين تدافيا نبينا عليه الصلاة والسلام محت المامي آخر ساعة أما وقت قدام بين يصبح دونان ضد صبحي قالوا به وقالك قدام إسلامه أما قالك قدام إسلامه وصبحي قالوا به يعني ساكا مؤمن مكوا بريستي لكن أعماشه سميه بقى يسيسي قالك قدام واقع أما ساكا قال لي مكوا بريستي هدو بهدنا شهتي قالك قدام مؤمن وحيابه كوسفين يكوا وحكمدها inay diintooda dhaafsanayaan in yar oo adduunyo bidhbidhkeeda xoolo ayaa diinta weydaariyay bini aadamku wuxuu ka mid yahay markaa qadiyadda dhaqaaluhu waxyaabaha ugu tirada badan leh macsida keena ilaahay markaa tusaale wuxuu inoo siiyey gabadh kale oo muslimada waa ummu ismaaciil nebiyullaahi ismaaciil hooyadii oo ah nebiyullaahi ibraahiim حاسكيس وحي إلهي قرآن كقلت الماما يا نبي إبراهيم وله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نبي إبراهيم والدعاء تنخرني قصة صحابي ابن عباس الله يرضى سيدو سو وريي امام البخاري وسو صاري صحيحي سو خليه ابن عباس با وخليه هي مكه ولا مدغاه ان عيدي جوجين ايو نبي ابراهيم سو كخيي هوانتيسي هاجراهي iyo ilmo yaro ay dhashay oo Ismaaciil ah hooyada ummusha ah oo nabigaasi wado ayuu wuxuu keenay saxaraha Carbeed meesha maka loo yaqaano oo lama dagaana wax aduuna wuxuu u siday qarbad ama sibraar ama saan biyo ku jiraan iyo weel kale oo waxoogaa timiri ku jirto qarbad biyo iyo qarbad timira labadaa inood buu wax adduunana wataa dabeeto intuu dhigay meeshii ayuu ibraahim iskaga tegey waxaad qiyaastaa hooyo dayacan oo aan odaygeedii la joogin oo la geeyey meel lama dega ah oo aan cidiba deganayn oo cid u dhowo ay og tahay aanay jirin oo meesha la dhigay aanay baad iyo biyatoona oolin oo iyadu waxa duuna haysata hal qarbad oo biyo ah iyo hal qarbad oo timiri ku jirto ama laba shay laba weelo midna timiri yar ugu jirto midna biyo ugu jirto markay aragtay ibraahim oo iska tagay bay su'aal weydiisay waxay ku tiri ibraahimow ayna tadhhab wa tatrukuna xaqaad qabanaysaa iyo nagaga tagaysaa bay tiri markay aragtay ibraahim oo xidho iska tagay ayaa waxay tiri xaqaad intaadna dhigtay aad nagaga tagaysaa ma waxaad nagaga tagaysaa bay tiri waadigan ama dooxadatan alladii laysa fiihi aaniisun walaa shay dooxadan lama dagaayaan cidiba joogin ma halkaasaad nagaga tagaysaa bay ku tiri nebi ibraahim lamuu hadal ee uu iska socdo kamay hadhinayana way daba socotaa oo ilmihii intay ka timay isagii daba socotaa oo su'aasha ku celcelinaysa mar qura muu soo eegin ee uu iska sii u qadaad jeediyo iska sii socday markii dambe su'aala weydiisay allahu amaraka bihada ibraahim sidan ma ilaahi baa ku faray bay tiri intaad halkaana dhigtay inaad iska tagto ma wax alla ku farayba qaala nacam haa buu ku yidhi oo ilaahi baa sida tan faray u fiirsa gabadha tan sida ilaahay u rumaysnayd siday u rumaysnayd in awood dunida oo dhan ugu weyn isaga uu yahay in wax waliba biyadihi almulk wax waliba inuu gacantiisa ku jirto dabeeta waxay tidhi idan laa yudayicuna haddaad alle nagaga tagtay allana dayici maayo bay tidhi ciddaad nagaga tagtay hadduu alle yahay subxaana wa tacaala ilaahayna ma dayacayo
dabeetana way iska noqotay ibraahimna wuu iska tegey waa tawakkul cala allah waa gabadh tusaale ku ah qofka mu'minkii hadduu ilaahay rumeeyo oo uu jidkiisa ku toosnaado inuu ilaahay faraj u furayo waa gabadh ay ka muuqato iimaankay alla ku qabto waa gabadh ay ka muuqato markaasi hadduu nebi ibraahim sheegay arrintani inay wax xagga alle ka timi ay tahay inay ilaahay u hoggaansan tahay oo aanay ka warwaraynin unguri ibraahim wuu ka tegey ibraahim laftiisa alla imtixaamaya oo ilma aad dhashay iyo haweentaada intaad cidla dhigta ka dhaqaaq waa imtixaan ibraahim waxyaabo badan baa ilaahay ku imtixaamay nebi ibraahim waxaa ka mid ahaa in la yidhaahdo wiilkiisii markuu soo kobcay gawrac waa ilmihii uu dhalay baa la yidhi birta mari waxaa ka mid ahaa in dab lagu riday oo dad diin uu sheego dab lagu ridayey imtixaanaad badan baa ilaahay ibraahim mariyey qur-aankana ilaahay wuxuu ugaga markhaati kacayaa nebi ibraahim u xalaaliya wixii la geliyey imtixaan inuu fuliyey laakiin bal haweentiisana aan eegno nebi ibraahim markuu arkay inay noqotay ayuu buur yar ama taaga yar intuu ka dhaadhacay ayuu dabeeta istaagay isagoo ilaahay baryayoo leh ilaahayow reerkaygii waxaan dejiyey waadi lama degaana rabbanaa innii askantu min durriyatii biwaadin hayri dii zarc cinda baytika almuxaram ilaahu reerkii waxaan dhigay buu leeyay ama durriyaddaydii waxaan dhigay meel lama dega ah oo baydkaaga xaraamkaa u dhow ilaahu waxaan u dhigay inay salaadda oogaan ee waxaad ka yeeshaa quluubta dadka inay xaggooda u soo janjeedhsato ilaahu midho ku arsaaq waxay mudan yihiin inay kuu toobad keenaane inay kuu shukri naqaane gabadhii timirteedii iyo biyaheedii bay iska cabtay ilmaheediina naaskay nuujisatay laakiin muddo markay joogtay baa biyihii dhammaadeen iyo wixii ay haysatay dabeetana way harraadday markay harraaddayna naaskii wuu gudhay iyadiiyo ilmihiiba way isla surbacaadeen waxay aragtay ilmaheedii yaraydoo laba boglaynaya oo gaajiya harraadu ku dhan yihiin oo iyana aanay waxba u haynin hooyo qiyaas meel cidla'a keligeed joogta oo aan cidnaba haysan iyo ciirsi toona oo waxay cunto weyday uu hor yaallana ilmaheediiyo gaajo la jiifi karila oo qaylinaya waxay isku dayday markaa ugu yaraan bal ilmaha inay ka indhaqarsato oo sidan uu sakaraadaya naftu u haysato aanay sii eegin dabeetana way iska socotay waxay fuushay buurta safa loo yaqaano safa markay kortay ay cabbaar ku taagnayd ama joogtay ayay haddana xaggii waadiga dib u soo jalleecday cidna way arki weyday markay cidna arki weyday ayay sidii qof daallan iyadoo iska soo dhaadhacday oo haddana dib u soo noqotay dabeetana buurta kale marwo la yidhaahda ayay gaadhay way soo eegtay meeshii iyana waxba waa arki weyday xag iyo xaggaba markay u kacday ee waxba arki weyday bay soo noqotaa kolna ilmihii bay xasuusataa bal soo eeg bay tidhahdaa inuu naftu ka baxo waa soo roortaa kolla buurta kale kortaa waxay istidhahdaa bal in dad iyo wuxuun aad alla kuu bixiyo aad aragto 7 jeer markay meeshii carcarartay ayaa gabadha tan ay soo noqotay ibnu cabbaas wuxuu xadiidkaasi qaybaha uu rafcinaya uu nebiga u rafcinaya waxaa ka mid ah inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadalika sacyu nnaasi baynahuma kaasi buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa sacyiga ay dadku meesha la ordo xajka labada buuroodoo la dhex cararo markii ay soo noqotay kadib ayay cod maqasha dabeetana iyadii baa isla hadlaysa waxay tidhi sah naabala'aamuba iyadii isku leeday nafteeday la hadlaysaa dabeetana uma tasamacat dhegtay raarraciso waxay istidhi bal xoog wax u dhegayso cod bay saani markaa u maqashay codkiiba waxay ku tidhi markaa qad asmacta in kaana cindaka khawaasin waar lagu maqal bay tidhi haddii aad wax tarayso codkaaga waan maqlayaa haddii aad wax gargaari karaysa bay ku tidhi waa malag ilaahay u soo diray subxaana wa tacaala malagii ayaa markaasi cidhibta ama baalka ku dhuftay meel hoose dabeetana ilbiyaa baa ka soo burqatay meeshuu ku dhuftay biyihii markay ka soo baxeen
ayay bilowday inay biyaha xerayso xawd dar yar ay u samaysato oo ay sacabka ku dhuuqdo waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam allaha u naxariisto ismaaciil hooyadii low tarakat zamzama hadday ka tegi lahayd buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam zamzamkaasi biyaha zamzam ha iska socdaane lakaanat zamzamu caynan muciina waxaa zamzamku noqon lahaa buu nebigu leeyahy il dareerta oo dadkoo dhamme ay ka cabbi karaan waa ceelkan zamzamka loo yaqaano ee xajka ku yaalla gabadhaas baa ilaahay u soo saaray way ka cabtay markay ka cabtayna way darartay dabeetana ilmaheedii bay naaska ku duwatay malaggii baa haddana la hadlayo wuxuu ku yidhi laa takhaafu dayca inaad luntaan ama dayaca ka baqina buu ku yidhi fa inna haada baytullah halkaas buu yidhi ilaahay gurigiisii baa ah oo wiilkanaad dhashee yar ee aad naaska nuujinayso maanta iyo aabbihii baa baydkan dhisi doona ilaahayna dadkiisa ma dayaco ayuu malagii ku yidhi gabadha tani waxay mihaal u tahay gabadh kasta oo mu'minad oo ilaahay tala saarata oo aan ilaahay jidkiisa dhaafsiisanin hunguri reeraha maanta yurub joogaa waxa u badan ee la isku dilaa waa adduun waxa u badanee dadku uu waddankiisii uga tagaa waa adduun waxa u badanee dadku xumo badan laga yaabo inuu uga dhacaa waa adduun laakiin ilaahay gabadha tan wuxuu tusaale inoogaga dhigayaa inay tusaale qiyaamaha u tahay qof kasta oo dumar ah iyo qof kasta oo nin ah oo markaasi ilaahay tala saarta oo ilaahay awaamirtiisa raaca inuu faraj helayo waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja baa ilaahay yidhi ciddii alla ka cabsata waayo gabadha tani su-aasha qudha ay nebi ibraahim weydiisay wuxuu ahaa ma ilaahay baa ku faray bay tidhi sidan in la yeelo markuu ku yidhi haayo ilaahay baa farayna waxay ku jawaabtay ilaahay nama dayacaya hadda mar hadduu ilaahay sidan yidhi dadka mu'minkaa waxa lagu yaqaanaa waxa weeyaan inuu yidhaahdo shaygan la sheegayaa qur'aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ku sugan yahy haddii la yidhaahdo markaa haa inuu yidhaahdo markaa uu fuliyo isagoo rumaysan dhib kasta oo ka timaada inaanu ilaahay dayacaynin gabadhaasi karaamo alle uu karaameeyey daraaddeed oo loogu talagalay inay gabadha tani taariikh yeelato oo ilaahay ugu talagalay inay noqoto maclam ama tilmaam ummadda muslimkii ay tilmaamsato ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay acmaashay samaynaysay qaar ka mida arkaanta ugu waaweyn ee islaamiga ah baa ilaahay ka dhigay inuu mid ka mid oo noqdo xajka marka dadku xaj tago meel baa jira la ordo asacyu bayna safa walmarwa waxaa loo ordayaa qofka mu'minkaa in dib loo xasuusiyo dadkii ilaahay rumeeyey ee halkan maray camalkoodii yani waxaynu naqaanaa waxyaabahan loo yaqaano dabaaldega iyo waxaan la sameeya waxa weeyaan xus la rabo qofka in la xasuusiyo maalintani qiimahay lahayd ama ninkan dhintay qiimuhu dadkan ku lahaa islaamku qofka ma xuso inta badan oo qofku ma aha waxa weyne la xusa waxa la xusaa acmaashuu qofku geystay sida daraaddeed baa islaamku sawirada iyo mithaalada iyo sanamada iyo waxaa la dhiso on lama rabo waayo sanamku ma aha qiimaha ee waxaa la rabaa qofkani camalku geystay camalkuna waa wax taariikhoo la wariyo oo la qoro ilaahay subxaana wa tacaala gabadhaasi camalkeedii iyo kalsooniday alle ku qabtay si dadka muslimkii taariikhdooda aanay marnaba u ilaabin baa laga dhigay cibaado ka mida cibaadaadka ugu weyne dadka muslimiinta ay sameeyaan oo xaja madhabu shaafici wuxuu qabaa inuu yahay rukni aanu xajkuba asaxaynin haddii laga tago madaahibta kale ee culimmaduna waxay qabaan inay waajib tahay dem lagu kabi karo waa masale fiqiya laakiin waa maclam ama waa tusaale ka mida tusaalayaasha diinta wuxuu kaloo yahay ceelkaasi biyuhu ka soo baxeen ee barakaysan ee uu nebi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam maau zamzami lima shuriba lah biyaha zamzam waa wixii loo cabo ayaa ilaahay kaaga dhigaya biyaha noocaasi waa gabadha tan biyuhu alla u soo saaray subxaana wa tacaala waa min karaamaatiha waxa uu tusinaya oo tusaale ka yahay dadka mu'miniintii gabadhay ku dayan lahaayeen tay tahay wadaraba allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين إلهي القرآن كوحي نوغا شيكيين لا يدهد فرعون
fircoon waxaa alla ku tilmaamay inuu boqor ahaa waxaa la tilmaamay inuu yahay weliba boqor kibray oo qooqay waxaa la tilmaamay boqor inuu yahay qooq intuu dhaafay ilaahnimo sheegtay oo qooqiisu uu gaadhsiiyey inuu dadka yidhaahda aniga ha lay caabudo ama uu dadka ugu khudbadeeyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn dada uu idiin garan maayo ama uu ku yidhi ana rabbukum alaclaa rabbigiina korreeya aniga ah ninka xadkaa gaadhay ee tolkiina gaalada ahaayeen ayaa ilaahay wuxuu tusaale inoo siinayaa gabadh mu'minada oo ibtilaaga intaa leeg u babac dhigtay waxay ka dhalatay gabadhani bulsho gaalo ah waxaa qaba nin boqor ah boqorku waa nin ilaahnimo sheeganaya fikraddaasi boqorku wato iyo dawladda iyo gurigaa boqortooyada gabadhii joogtay baa ilaahay rumaysay subxaana wa tacaala waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa markaasi intay ka weecatay zawjkeedii iyo usradii gaalada ahayd iyo bulshadii gaalada ahayd inay ilaahay rumaysay oo ay caddaysatay iimaankeeda oo ay ku mintiday waxay tusaale u tahay gabadh kasta oo imtixaan qabsado oo qiyaamaad tidhaahda ninkaygiibaa dee gaal ahaa gaalaan ku dhex noolaa kan baan samayn kari waayey aasiya kamaad wadci xumayn uma taalla aasiya wadcigay ku noolayd iyo mashkiladdii haysatay taadu kama gedisnayn idan waa ibtilaa ilaahay uu gabadhaasi imtixaamay oo laynoo tilmaamay markaa wadaraba allahu maala liladiina aamanuu baa layidhi marka tusaala looga dhigay baa layidhi dadka mu'miniinta ah tusaale waxay ugu tahay fii quwati aliimaan tusaale waxay ugu tahay inaanay caqiidadeeda dhaafsanin manaaficda dunidao dhan haddii laysu keeno ninkii lahaa miyaydaan arkayn waxaan webi hoostayda dareerayay waxaan boqortooyo haysto waa boqorradaa taqaaniin ee xabaalahoodii ay yihiin waxyaabaha dunida maanta ugu cajabta badan leh ahraamtan masar ka dhisan waa meelihii ay ugu talagaleen xabaala ay ka dhigtaan meelaha dunidu maanta ay ka yaabantay sida loo dhisay raggii xabaal ugu talagalay inay ka dhigtaan ayay khilaaftay oo ay iimaan ku khilaaftay waxay sheegaysaa markaasi inay mithaal u tahay gabadha mu'minadda ee dhabta ah taasi waa gabadh ayay ahayd ka hor tagtay gaalo iyo odaygeediyo gaala iyo dawlad dhan oo gaala is hortaagtay tusaale labaad haddaan soo qaato ku saabsan cunnada ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa haweenay alle bariday oo weydiisatay ilmo khayr qaba in alla siiyo oo ilmaha khayr qaba dabeetana ay masaajidka ama macbadka ay ilaahay dartii ugu nadarto ilaahay uu siiyey gabadh markay uur yeelatay odaygeedii uu dhintay dabeetana ay gabadh noqotay iyadu wiilba islahayd buu noqon doonaa laakiin ilaahay gabadh buu ka dhigay gabadh wiilasha ka fiican gabadhaas waatuu nebi moxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilmo kasta oo la dhalo markuu dhasho shaydaan baa gujiya maryama iyo inankeedii mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maryamo iyo inankeeda mooyaane qof kasta oo dhasha shaydaan baa gujiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka ku soo arooray maryama waxay mithaal u tahay gabadha daacada laasimta hadday gabadha muslimadda ahi ay daacada ilaahay laasimto in ilaahay iyadana adduunkeedoo dhan u ururinayo waxay mithaal u tahay karaamaadka la sheegiyo awliyada waa maqashaan dadku inay yidhahdaan hebel karaamaa ka dhacday akbar karaama qur-aanku uu sheego gabadh baa iska leh marka laga yimaado mucjizaati alambiyaa ee qur-aanku karaamo dhacday oo uu ka warramo qof mu'mina ka dhacda kuwa ugu waaweynee uu qur-aanku sajilay waxaa ka mida taa maryama waxay noqotay gabadh cibaado badan oo habaryarteed riwaayaadka qaarkood say sheegaanna walaasheed ayaa waxaa qabay nebiyullaahi zakariya dabeetana zakariya kafaalo qaadoo koriyey guri nebay ku kortay waxay noqotay gabadh cibaado iyo iimaan lagu canqariyey oo diin nuugtay oo ku kobocday oo ku kortay oo ka shaqaysa meeshii alle lagu caabudayay baytullaahi ka shaqaysa cibaadadeedii markay tiro badatay
xad bay gaadhay karaamaadka ka dhacaya qur-aanku uu sheegaya uu tilmaamayo inay cunno meesha taalle ugu iman jirtay iyadoo aan shaqaysanoo meelna qabanin ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa intuu nebigii u soo galay markaa inuu ka yaabay un cunnadan meesha taalla weliba mufasiriintu waxay yidhahdaan cunnada loogu iman jiray waxay ahayd cunno khilaafsan ta dadku uu haysto yacni beeraha waxaa jira raashin xagaaga go'a iyo raashin jiilaalka soo go'a wakhtiga qaboobaana dhir gaaraa baxda wakhtiga kulaylaana dhir gaaraa soo baxda marka kulayluhu jooga maryamo waxaa loogu yimaadaa bay yidhaahdaan wixii go'i jiray wakhtiga qabowga wakhtiga qabowgana waxaa loogu yimaadaa iyadoo haysata summer timeka midhihii go'i jiray waa waxaad u cajiiba nebigii baa la yaabay gabadhan yar iyo cibaadadeed iyo waxaan ay haysato dabeetana wuxuu yidhi yaa maryamu annaa laki haada naha maryamay xaggaad ka keentay buu yidhi arrintan raashinkanuun meesha yaalla xagguu kaaga yimaadaa su-aashaa buu weydiiyey waxay ugu jawaabtay qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaaba ilaahay buu ka yimi bay tidhi ilaahayna cidduu doono isagaa arsaaqa xisaableeyey gabadha tan karaamadii ka dhacday waxay xasuusisay nebiga kani inuu dib alle u baryo nebiyullaahi zakariya waxba ma dhali jirin waanu gaboobay haweentuu qabayna waxba may dhalayne way gabowday odaya islaan gaboobay bay ahaayeen dabeetana nebiyullaahi zakariya isagoo nebiyaba gabadhan yar cibaadadeed iyo karaamaadkan ka dhacaya markuu arkay ayaa waxay ku bixisay inuu dib alla u xasuusto isna alla baryo inay suurtagal tahay isagoo da'daa gaadho islaantiisuna da'daa joogta in ilaahay ilma siin karo hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala ilaahay baa qur-aanka markaa wuxuu ku leeyahy hunaalik dacaa zakariya rabbah halkaas baa ilaahay yidhi markuu arkay zakariye gabadhaan shaqo teginoo halkan iska fadhidaaba inay wax cunayso halkaa markuu arkay buu ilaahay baryey buu alla leeyahy subxaana wa tacaala qaala rabbi hab lii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu ducaa ilaahayow duriyad fiican beer fiican isii buu yidhi adiga ducada aqbalee ilaahayna wuu ka aqbalo isna nebi yaxyaa la siiyey maryama waxay kaloo tusaale u tahay gabadh kasta oo qiyaamaha cifadeeda dumisa oo tidhaahda waan baahday bay tusaale u tahay walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka wuxuu ku ammaanayaa ammaan gaar oo ay leedahay oo ah inay dhowrsanayd oo aan hunguri qaadin saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wamaryama bnata cimraana alatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiih min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kaanat min alqaanitiin qiyaamaha gabadh kasta oo cifadeeda ku xadgudubta oo dhallinyaronima qaado oo magaalo gasha oo tidhaahda waan adkaysan kari waaye meel xun baan joogay waxaa la leeyahay maryamiba way adkaysatay wax bini aadam yeeli karo ayaad adigu dumisay maryamiba ilaahay tiisii bay raacday ee adaad diiday alle tiisii inaad raacdo waxa ilaahay uu tusaale inooga dhigay maryama inay aakhiro ibtilaaga ay u noqoto gabadh kasta oo lagu dhex ceebeeyo tolkeed laakiin iyadu go'aansata inaanay ilaahay jidkiisa marnaba ka weecanin inkastoo dadku ay waxay doonaan ka sheegayaan waxay doonaan dad ha sheegaane gabadh daahir oo cifadeeda ilaahay uu ka markhaati kacay oo haddana bulshadii ku xeerayd iyo dadkii la noolaa ay ku ceebaynayaan inay gabadh xun tahay bal ee ay ku leeyiin markay arkeen iyadoo uur leh ama iyadoo ilma sidata ay ku leeyihiin maad ahaan jirin adiguna gabadh xun waxaad ahayd maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat ummuki bagiya yaa ukhta haaruun bay lahaayeen aabbahaana ma xumayn hooyadaana gabadh suuqa gashay ma ahayn adigu waxaan xaggaad ka keentay bay ku lahaayeen qiyaas inan yar oo cifadeeda dhowratay oo ilaahay caabuday oo bulsho haddana la dhex timi iyadoo uur la un waxa dadkaasi ay odhanayaan ama waxa la sheegayo intee dhib gaadhaad u malaynaysaa gabadhaa miskiinta ah ee cibaadadeeda wadatay ee la arkay un iyadoo uur weyn leh bale la arkay iyadoo ilma sidata maxaase dadku ku odhanaya
ilaahay waa ka yuhuud markuu ceebaynayo ku tilmaamaya waxyaabihii lagu nacdalay yuhuud inay ka mid tahay maryamo waxay ka sheegeen buhtaankii weynaaye ay maryamo ka sheegeen inuu ka mid ahaa laakiin qofku hadduu ariiqa alle laazimo ilaahay baa u ballan qaaday inuu faraj u furayo maryamo yaa difaaci lahaa haddii la yidhaahdo inantani waxba may samayn iska daaya yaa dhegaysanaya ilaahay baa difaaco wuxuu ku difaacay waxaanay dadba filaynin maadaama cirdigeedii iyo sharaftideedii dad uu ku xadgudbay ilaahay baa difaac u sameeyey yaa difaac u noqday maryami yaa laytanii mitu qabla hada wakuntu nasyan mansiya markay lahayd ayaa ilaahay faraj u soo furay oo waxa la yidhi dee gabadh tolkeed ku dhex ceebowday waa inay iska tagtaa markay iskaga tagtayna cidla markay u baxdayna wax la cuniyo waxba toona ma jiraan waa gabadh umula oo hadda umulaysa dabeetana calaacalkii bay tidhi bal maan iska dhintaba ama tu aan laba garanayn ilaahu maad iga dhigtid bay leeday markay aragtay dhibta haysataa intay leeg tahay ilaahay baa faraj u furay oo waxaa lagu yidhi geedan timire aad joogto jirrideedun yaro taaba baa la yidhi ilaahay baa kaaga soo da'inaya rutaban janiya timirtu marka malabku ka da'aya ay jilicsantae aanay engegin ee sida malabka loo dhuuqo oo kale taas baa ilaahay kaaga soo dejinaya halkanna biyo kacab baa la yidhi hoostan hoosana biyo kacab timirtaada iyo biyahaaga isku cab oo waqarri caynan baa ilaahay yidhi ishaaduna ha doogsato waxba ha warwarin anaa faraj kuu furaya baa ilaahay leeyahy ishaaduna ha doogsatee waxba ha warwarin maryamo waxaa la yidhi tolkaa markaad u tagto adigu waxba ha isdifaacina iska aamu ilmahan yarun farta ku fiiq kanba alle ka hadlinaya isagaa ku difaacaya adigu iyo waxba ha qabanin iyadu ilaahay bay adeecday ilaahayna wuxuu tilmaamayaa farajkeedu siduu noqonayo adigu waxba ha isdhibin baa alla leeyahe mujarad waxaad samaysaa ilmahan tilmaam faashaarat ilayhi baa alla leeyahy ilmihii bay u tilmaamtay qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya jees kalaa la bilaabo waxaa la yidhi waxaan yare dharabta saaran maxaanu kala hadalaabay ku yidhaahdeen markay tidhi anugu hadli maayo ilmahan la hadla kan maxaanu kala hadlaa baa la yidhi waad iswareerinaysaa une kii yaraabaa alla ka hadliyo wuxuu leeyahy qaala inii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiya isagoo dharabta saaran buu leeyahy wardadow ilaahay addoonkiisii baan ahay nebi baanan ahay ilaahay baana kitaabi siiyey waa ilmo la sido ayaa saa sheegaya ilaahay baa difaacay cirdigeedii iyo sharafteedii ilaahay baa u difaacay subxaana wa tacaala waxaa tusaale idinku filan qur-aanku uu tusaale u bixinayaa gabadh hooye ilmaheedii lagu weeraray laakiin uu alla faray wax adag hooye ilmo ay dhashay in la yidhaahdo ilmahaaga qaado baddaa ku ridoo iskaga tag anaa badbaadinaya intaad aqbali karaysa in lagu yidhaha qaad ilmahaaga oo intaad qaaddo baddaa un dhig dabeetana liivin ka tag adigu ilaahay baa badbaadinaye ummu muusa nebiyullaahi muuse hooyadii ilaahay baa qur-aanka inoogaga warramayo waxaa la yidhi qaad ilmahooradoo baddaa dhigoo iska dhaaf adigu markaasaa ilaahay u ballan qaaday weliba aayadda qur'aan ee ilaahay leeyay waawxaynaa ilaa ummi muusa an irdaciihi faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyam walaa takhaafii walaa taxzanii ina raadduuhu ilayk wajaaciluuhu min almursaliin ilaahay wuxuu u tilmaamayaa aayadda tani laba amar iyo laba nahyi iyo laba khabar ayaa ku sugan waxaa alla u tilmaamayaa subxaana wa tacaala ilmaha naaska nuuji baa la yidhi haddaad u cabsooto hadduu boqor amar buu soo rogay ninkii kibreey ee waddanka haystay uu leeyahay waddanka dadka ku noolee reer banu israa'iil la yidhaahdaa dumar mooyaane rag ma dhali karaan wixii ay rag dhalaan waa inuu dhintaa oo la dilaa wixii dumarana ha la daayo shaqaalaha noqdaane dawladdii amarkaa markay soo bixisay hooyadiina muuse hooyadiioo haysataana ay meesha joogtaa ilmahan xaggay qabadsiin way werwertay ilaahay baa wuxuu yidhi markay umushay waxba ha werwerine ilaan intay uurka lahayd lama garanaynin wiil iyo gabadh waxay sido laakiin markaa umusho khatar bay ku sugantay waxaa la yidhi ilmaha kan adigu naaska iskaga du laakiin dee ilmo yari miyuu ku aamusaya wuu qaylinu wuu ooyiyo xaafadaha iyo jaarku waa lagu ogaanaya in ilmo meesha joogo
marka uu rabshada bilaabo haddaad cabsato baa la yidhi in adigu badda ku rid qaado baddaa iskaga rid dabeetana baa ilaahay ku yidhi ha biqin hana murugoonin anigaa soo celinaya oo weliba rasuul ka dhigaya baa ilaahay yidhi anaa kuu soo celinaya isagoo weliba rasuulna noqonaye waxba ha u biqin haweenaydii qalbigeedii intay xidhxidhay bay ku ridday ilaahay baa u badbaadiyey waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa walaal inan walaalkeedu khatar galay oo uu gacan gaaleed galay oo la faraya inay basaasi tagto waa inanay noloshu badday tol kale weydiiya cid wax u dhicisa oo la yidhi orodoo wax soo basaasoo soo dhegedhege bal wiilkii halku ka dhacay oo weliba loo diray mishanka ah inay boqortooyada qanciso ilmaha kan in cid u hayn karaysa ay jirto qiyaas inan yaroo walaalkeed loo baqayay oo ay ka baqaysay boqortooyadu inay disho oo ilmihiina gacantii boqortooyada uu ku dhacay oo loo diray mishanka inay ku guulaysato inay walaalkeed badbaadiso waxay tusaale u tahay gabadhu haddii ay mu'minada dhaba tahay inay qalbiga xidhan karto aanay baroor iyo baqatoon aanu ka muuqan karin inay iyadoo mishankaasi fulinaysa ay u tegi karto ninkii dadoo dhammi ka baqaya dadoo dhan laynayay inay u tegi karto weliba iyadoo ku doodaysa inay hayso wiilkan cid badbaadin karta waa muuse walaashi hooyadeed waxay tidhi nabalorod oo isha soo marmariyo eeg way bidhbidhaamisay waxay ogaatay in gacantii boqorrada uu ku dhacay dabeetana way u timo waxay tidhi bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hada horowga wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda habaalaanida dugsiga online-ka ee barashada